muddo kooban ayaa ka hadhay xuska maalinta dib u soo laabashada xorriyadda jamhuuriyadda qaranka Soomaaliland. Haddaba magaalada Burco ayaa magaaladii lagaga dhawaaqay go'aansitaanka dalka Soomaaliland. Dhawaan ay ahayd markii barasaabka gobolka Togdheer uu saaray guddi ka kooban 13 xubnood. qabanqaabada xuska maalinta 18 May waxayna u muuqatay inaanay gabi ahaanba shaqaynaynin guddidaasi. waxaana magaalada Burco aan laga dareemaynin saansaanta xuska maalinta 18 May oo sanadihii hore bil ka hor laga dareemi jiray magaalada Burco qadiyadda qaranka Soomaaliland. magacyadii guddiga oo ka kooban 13 xubnood waxa uu horeeya Sheekh Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan mayorka magaalada Burco oo gudoomiyaha guddiga gudoomiye ku-xigeenka Maxamed Diiri Xayd oo ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Cabdi Maxamed Ciise oo xogeeye oo ahna xogeeyaha xarunta maamulka gobolka Togdheer Saleebaan Maxamed Maxamuud isuduwaha wasaaradda maaliyadda isuduwaha wasaaradda horumarinta maaliyadda shan Ismaaciil Xayir isuduwaha wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada Jaamac Maxamed Cali maareeyaha wakaaladda biyaha Burco Yusuf Ibrahim Warsame isuduwaha wasaaradda warfaafinta Mastarka Case number 8 Mustafa Sheekh Maxamuud Umar gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Togdheer sagaal Cabdiqaadir Xuseen Mataan gudoomiyaha bacadlayaasha Xasan Xamdulla Jaamac gudoomiyaasha bacadlayaasha koob iyo toban waxa weeye Saydab Yuusuf Cabdi Saciid gudoomiyaha ururka UNITA oo ah ururada madaxa banaan local NGOs ka hawlgala gobolka 12 Ismahaan Jaamac Maxamuud waa Ismahaan Jaamac Tanig waxa weeyaan gudoomiyaha ururka qaranka haweenka naaw ee gobolka Togdheer 13 Xasan Jaamac Warsame gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer 13 ka xubnood ayaa noqonaya guddiga u diyaar garowga 18 May ee gobolka Togdheer waxaana muddo kadib maayirka degmada Hargeysa ku dhawaaqay in dib loo soo dhigay xuska maalinta 18 May oo ah maalin dalkani ku weyn loona soo raray 15 May haddaba dhalinyaro iyo aqoon-yahano ka soo jeeda magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa ka hadlay dib u dhigida xuska maalinta 18 May iyo sidoo kale saansaanta aan laga dareemaynin gobolka Togdheer xuska maalinta ku weyn qaranka Soomaaliland. Eedin Mayna waa maalin astaan u ahayd qarankan uu lahaa ilaa 1991kiina isweydiintu waxay ahayd Eedin May qof dhashay ilaa maalinta wadanka la soo galay iyo kuwa yaryar imankaan u dhalay guryahayaga jooga Eedin May dee looma tilmaamo waa maalin la yaqaanaan oo maalin la sii diyaar garoobaan May markay dhalatay ay koonayaan sida iidaha xuskii Eedin May iyo waxay ugu dabaaldegi lahaayeen inay u diyaar garoobaan fikirka ku aadan maalintan loo bedelay Eedin May ee loo bedelay 15 anagu ma aqbalsanin mana aqbalayno maalinta qaran ee la bedelay waayo qaranku de maalin buu lahaa oo astaan bay qaranka u ahayd maalintii qaran ee lagu dhawaaqay go'aansitaanka jamhuuriyadda Soomaaliland Eedin May ku asteesnayd waxa loo bedelay maalintii SWL mana noqonayso in kolba sidii la doono la iska yeelo oo shacabkuna ay iyaguna iska dhigweyn iska ahaadaan waayo waxyaabo badan baa intii ay xukuumadda kulmiye joogtay marba waxba isbedelay kolba heer dhulkun baa la sii sameeyay maanta waxay maraysaa in inankii 18 May maalinta ay ahayd dhashay la yiraahdo 15 May baad dhalatay waxaan u aaminsanahay oo aan arkaa fikir ahaan in maalintii qaranka loo reey maalintii kacaanka aynu waxaan soo kala maray garanaysaan Cabdiraxmaan Ciise wararka telefishinka caalamiga Soomaali Cable Burco.